salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal waa inaan salaamay meel walba oo aad dunida dacaladeeda ka joogtaan halkani waa wadaagsin production oo aad aalaaba kala socon jirteen warbixinadii ugu dambeeyay ee dalka dibadiisa iyo gudihiisa fadlan daawada waxaan kaa codsanayaa haddii ay tahay markii kugu horeysay ee channelka ina aad rukumatid channelkeena oo subscribe saaratid gambaleelkana furatid si ay kuu soo gaaraan warbixin walba oo aan halkan soo galino waxaa iga xasuusinaya inaadan hilmaamin like share-na u dhihin asxaabtaada qaybta faallada ee commentigana aad noogu reebtid warbixinta ama falcelinta warkan intaasina waxay ahaayeen hordhici wararkii ugu dambeeyay aan ka helayno dalka dibadiisa iyo gudihiisaba ayaan hadda u gudagalaynaaye siyaasiga caanka ah ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo sheegay in aysan ahayn in tacsi loo dhigo injineer Yariisow madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wacad ku maray inuu al-shabaab dalka ka saari doono tan iyo markii uu dhacay qaraxii la eegtay gobolka Banaadir dowladda federaalkana ay soo saartay warbixintii baaritaanka dadka Soomaaliyeed kuma aysan wada qanacsanayn baaritaankaasi waxaan idin haynaa xog buuxda oo ku saabsan labadii gabdhood gabadhii isqarxisay iyo gabadhii baxsatay bil ka hor wixii dhacay waxa soo dhawaatay doorashada madaxtinimada Jubbaland qaramada midoobay oo bayaan ka soo saartay doorashadaasi sidoo kale soo dhawaatay doorashada maamul goboleedka Galmudug madaxweyne Xaaf miyuu is sharaxaya mise isma sharaxayo xog buuxda ayaan idin kaga haynaa ayadana wadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon ee warkeena haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan hogaamiyaha xisbi mucaaradka ee wada jira Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa dhaleelay go'aankii ay dowladda Soomaaliya tacsi iyo baroordiiq ugu sameysay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Allah u naxariistay Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yariisow qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook oo arrintan ku saabsan ayuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur u sheegay tacsi baroordiiq waxa loo sameeyay ruuxii si dabiici ah u geeriyooday Allah u naxariistay Yariisow cadow ayaa dilay ee si dabiici ah uma dhiman waxay ahayd inaan muujino in cadowga uu haldoorkeena ilaayay diinteena islaamku ma dhiirigelinayso tacsi janaasad iyo baroordiiq loo sameeyo dadka gacanta cadowga ku shahiida sababtuna waa in cadowga loo muujin catow iyo dabacsanaan dadkana aan dhiig ee shuhadada wax iska caadi ah looga dhigin waxay ahayd in injineer Yariisow iyo saaxiibadii kale ee la dilay loo aargudo maantana ay noqoto maalin dhilo iyo abaabul waxay ahayd in injineer Yariisow gutooyinka ciidanka difaaca ku jiro loogu magacdaro hogaanka dowladuna oo fariimaha dagaalka jooga waxay ahayd in cadaaladda la horkeeno kuwii abaabulka fududeeyay falkana geystay laakiin midkoodna ma dhicin welina waana la hodayaa cadowga ayaa loo garbadoobaya inta dilka injineer Yariisow geeri dabiici ah loo ekeysiyay Allah u naxariisto injineer Yariisow iyo intii kale ee weerarkaas ku shahiiday ayuu u dhaway qoraalkii uu bartiisa Facebook soo dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wacad ku maray in dowladdiisu ay al-shabaab ka saari doonto guud ahaan dalka Soomaaliya kadib khudbad uu shalay ka jeediyay isu soo bax loogu duceynayay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir injineer Yariisow madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dagaalka al-shabaab uu socday waqti fog isla markaana aysan hadda lahayn awood ay uga babacdhigi karaan ciidamada xoogga Soomaaliyeed iyo kuwa midowga Afrika sidoo kalena wuxuu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay dowladda federaalka ay ka gacan siiyaan adkeynta amniga si looga hortago bujiri weerarada ay al-shabaab geysato al-shabaab ayaa wali ku xoogan dalka waxaana inta badan weeraro iyo qaraxyo ay ka geystaan gudaha Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee dalka weerarkii ugu dambeeyay ayaa waxay al-shabaab ku dishay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo ku jiro duqii Muqdisho marxuum injineer Yariisow xog buuxda ayaan idin kaga haynaa labadii gabadhood ee fuliyay qaraxii gobolka iyo wixii dhacay bilo koor dowladda Soomaaliya ayaan habeen hore natiijo hordhaca ka soo bandhigtay baaritaanka qaraxii 24 July waxyaabaha aan la shaacin bas la xaqiijiyay waxa kamid ah magaca gabadha qaraxa filisay oo Basiira Cabdi Maxamed hase yeeshee magacaasi oo midka ay sheegatay dowladda balse magaceeda dhabta uu yahay Maryama magaca Maryama waxay wadaagsin u shaacisay dhowr maalmood ka hor baaritaan uu sameeyay galka baarista VOA ayaa lagu ogaaday in magaca xarunta gobolka Banaadir looga yaqaanay gabadha labaad ee qaraxa filisay degan balse magaceeda dhabta uu ahaa hodan sida aan xogta ku helnay labada gabdhood ayaa magacyo been isku diiwaan galiyay dowladda si ula kac ah taasi oo qayb ka ah qorshaha shirqoolkooda ay soo dejiyeen al-shabaab degan ama hodan ayaa waxa lagu shaqaaleysiiyay codsiga Basiira ama Maryama oo arag leh taasi oo sheegtay inay u tahay kaliya ama qof ka caawinay maadaama aanay waxba arag si kastaba dowladda ayaa ku fashilantay inay baaris buuxda ku sameysay labada gabdhood waxaana la rumaysan yahay in loo calool dabcay Maryama maadaama ay arag ay taasi oo iyana ay ka faa'iideysatay dowladdu waxay sheegtay in labada gabdhood ay fasaxay waqti dhow ay isku qaateen bil ka hor munaasabadii xuska maalinta xorriyadda 26 Juun iyo 1 July kadibna aadeen xurumaha al-shabaab iyagoo soo laabtay kadib si ay uga qayb galaan xuska waxaa jira tuun ay qabaan saraakiisha amniga dowladda oo in Maryama ay doonayso inay beegsato mid kamid ah munaasabadaha xuska maalmaha xorriyadda oo ka qayb galayay madaxweynaha Farmaajo si ay u disho madaxweynaha labada munaasabadood ayaa ka kala dhacay Villa Soomaaliya iyo xarunta gobolka Maryama waxay ka qayb gashatay xarunta gobolka balse wali lama hubo inay tagtay Villa Soomaaliya hase yeeshee oo badna sida aan xogta ka helnay
waxaa sidoo kale baaritaanka lagu ogaaday in markii ay fasax qaadatay horaantii Juun ay Maryamo u sheegtay injineer Yariishow inay dhakhtar u aadayso India waxaanu siiyay $10,000 oo caawimaad ah hase yeeshee ma aadin India waxay tagtay xarumaha Al-Shabaab si qarax loogu sii diyaariyo maalinka qaraxa uu dhacay waxay aad uga codsatay inay la kulantay Yariishow si gaar ah balse waxaa loo sheegay inuu mashquul yahay waxaana kadib ka qayb gashay kulanka ay qarxisay iyada oo fariistay meel 5 kursi u jirta Yariishow markii qaraxa uu dhacay Maryamo iyo Hodan labadaba lama baarin waxaa la sheegay in gabadha baadha haweenka ay xilligaas qadab ku maqnayd macada sababta uusan u jirin qof kale oo baara haweenka oo buuxiyay booska qofkii ka maqnaa haddii uu jiraan halka uu ku maqnaa Maryamo ayaa la sheegay in qaraxa ku soo xirtay jirkeeda halka Hodan ay wax yar un qaraxa ka hor ka baxday xarunta isla markiina uu safartay xarumaha Al-Shabaab oo ilaa ay hadda ay ku sugan tahay baaritaanka dawladda wali ma go'aamin in Maryamo ay markii hore ay dawladda shaqaale ka noqonaysayba ay sidaas u samaysay inay qaraxa fuliso inay kadib iyada oo shaqaalaha ay Al-Shabaab maskax bedeleen hase yeeshee waxay u badan tahay mid hore xogta aan helnay ee ay la wadaageen saraakiisha amnigu ayaa ah in ujeedka ugu weyn ee Maryamo uu ahaa inay disho madaxweynaha balse ay ku adkaatay ugu dambeyn shabaabku go'aamiyeen gudoomiyaha gobolka waxaa jira marar badan oo la sawray iyada oo la joogto madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweyne Farmaajo hase yeeshee baaritaanada madaxweynayaasha oo adag darteed aysan ku dhiiran madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu ka tanaasulay inuu u tartamo xilka madaxweynaha Galmudug Xaaf waxa uu sheegay in dhibaatada ugu badan ee maamulka Sirgaasa ay tahay kadib markii dadka ka soo jeeda deegaanku ay cagaha ku dhagaan dadka madaxda ah ee la soo doorto Xaaf ayaa yiri waxaan ka tanaasulayaa doorashada madaxtinimada Galmudug cidii doonaan ha doortaan laakiin waxaan kula dardaaramayaa in qof kala doorto la shaqeeyo Xaaf ayaa 2 bil ka hor heshiis rasmi ah la gaaray dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kadib loolan adag iyo dagaal ay dowladdu u gashay inay xilka ka tuurto heshiiska Xaaf oo la galay dowladda ayaa la rumaysan yahay inay qayb ka ahayd shixnad dhaqaale ah oo uu helay isagoo taa bedelkeeda xaqiijiyay inuusan dib dambe ugu tartami doonin xilka sida aan xogta ku helnay doorashada Galmudug ayaa la filayaa inuu ku soo baxo musharax ay dowladdu wadato si ay markale u xaqiijiso inay gacanta ku dhigto maamul goboleed kale kadib doorashadii Koonfur Galbeed qaramada midoobay iyo saaxiibada danaya Soomaaliya ayaa ka digay in doorashada Jubbaland ay u dhacdo qaab daafurnaan la'aan ah iyagoo ugu baaqay madaxweynaha Axmed Madoobe iyo guddiga doorashooyinka inay habraac waafi ah u dejiyaan tartanka warqad loo diray guddiga doorashooyinka Jubbaland Agoosto 8 2018 ayuu wakiilka cusub ee qaramada midoobay James Usman ku sheegay inay su'aalo ka qabaan habka loo maareynayo soo xulista xildhibaanada iyo doorashada madaxweynaha waxay sheegeen in wakiilada beesha caalamku ay ku baaqayaan doorasho nabdoon oo xor iyo xalaal ah sidoo kalena ku saleysan raac hafan iyo ay ku dhacdo Jubbaland bishan Agoosto warqadda James Usman ayaa la filayaa inay abuurto dood ku aadan kalsoonida lagu qabo guddiga doorashada Jubbaland iyo in Kismaayo ay ka dhacdo doorasho natiijadeeda laga wada qancin karo dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa soo saartay war qoraal oo ay ku sheegtay inaysan aqoonsan doonin natiijada doorashada Jubbaland haddii aan la raacin nidaamkii ay iyadu dejisay waxay sheegtay wasaaraddu in odayaasha soo xulay xildhibaanada cusub inay noqdaan kuwa iyadu diiwaan gelisay sidoo kalena baarlamaanka la dooranayo looga qaaban yahay markii uu guddoonku doorto kadib inuu dhiso guddi ka shaqeeya qabsoomida doorashada madaxweynaha Jubbaland si kastaba Jubbaland ayaa hore u diiday baaqa dowladda federaalka Soomaaliya waxayna sheegtay in arrimaha doorashooyinka ay yihiin kuwa u gaar maamulkan oo isaga kaliya go'aamin karaan madaxweyne Axmed Madoobe oo Jubbaland soo maamulay hoggaankeeda tan iyo asaaskii 2013 ayaa hadda ka mid ah musharaxiinta isagoo raadinaya in mar saddexaad xilka loo doorto daawadayaal aad ku maasantiin sida sharafta badan ee aad noola socoteen una dhammaysateen warkeena inta aan mid ka xiiso badan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagnaa annaga iyo bahda wadaagsan oo isku duuban sidaas nabadgelyo